waxaan doonayaa 26 Juun habeenkii ay 26 ahayd Juun waxaan ka qayb galay xaflad aw maamulka gobolku si fiican u soo agaasimay oo hoteelka Rays lagu qabtay runtii halka waxa iskugu yimiday hal doorkii iyo cuqaashii iyo professoradii iyo culimadii iyo dhammaanba maamulka gobolka iskugu yimid si heer sare aana xafladda loo amaamulay oo loo sameeyay waxaana qorshaha hadalka furay xoghayaha gobolka Awdal oo runtii nin muddo kara ah waxaanu ku bilaabay aayadaha quraanka oo uu yeeray sheekha isku duwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka Awdal inta markaan ka gudubno ilaa habeennimadii 12kii markay ahayd si fiican baa loo caweynayay 12kii googobaan ismaac salaameynay dadkuna way ishambaliyeen waa la nabad seexday hase ahaatee aroornimadii ka dambeysay gooray 10kii ahayd baa waxaan soo galay magaalada iyadoo oo la leeyahay waxa la xidhiidhay dhalinyar afartameeye iyo ama kuntameeye meelaha ku dhow markaan warsadeena waxa la igu yiri waxay soo qaateen calankii Soomaaliyeed ee xidigta dhexda ku lahaa runtii aad baan u canaantay markaa anigu waxaan u gartay inay qalad galeen halkana waan ka canaananayaa halkaana waan ka canaantay runtii waan canaananayaa canaan baan u waajiba hase ahaatee Soomaalidu waxay tiraahdaa caruuri hawaas ka shay oo hooyadeed kula galgalatay runtii xukuumadda maamulka gobolka iyo xukuumadduba iyaga ayaa u xigta aad caruurta hadday hooyo u noqonayaan u samirta iyo hadday aayo u noqonayaan ama dheeraha geeyeen ama meel ka dareysa geeyeen iyaga u taalayo mas'uulkay aniga ima soo gaadho xumahay maamulka gobolka Awdal inaan caruurta u sheegi karin Soomaalilandnimada waxay tahay haddii la weydiiyo Soomaalinimadu sidee u dhantaa waa macaan hadda tiraahdo ku yiraahdo macaanku ma ka sokorta ma ka malabka ma ka nabaadka ma ka liinta miyad xanaaq Soomaalidu sheegeen ka yahay waxaan oran lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo xishmad iyo karaamo u haya cid Soomaalinimada dadka ka dhaadhiciso oo u sharaxda ilaa qofka mas'uulkiisa waa inuu dadka waxa uu mas'uulka yahay uga aqli rooyahay dadka maamulka gobolku inay shacabka Soomaaliland boorama jooga inay uga aqli roon yihiin oo uga garasho roon yihiin oo u garaabaan weeyna u sheegaan ma haas Soomaalinimada u lagu ilaalinayo macnaheedu ma sameynayso caalan hadduu caalanku wax qabanayo xamar buu wax ka qaban lahaa caruurta in inta loo sheegay buu hayday xamar buu yaala hadduu wax qabanayo wax sama qabanayo caalanku